ma dooranin wax kasto aan soo maro iyo wax kasto oo dhacay qof bini aadan oo dooranayana ma jirto wax aad iyo aad ugu xanuunjiyo qalbigiisa u dhaawaca aniga waxaan soo maray xilliyo aad u adag yaan la soo hor istaagay cid aan la soo hor istaag ma jirto meeqa sano waan bahdil ku noolaa meeqa sano oo dhaga hadal ku noolaa meeqa sano oo maaragtay meelaan munaasibkeyga ahayn aan taagnaay ilmahayga dartooda meeqa sano badan waxaad i taqaanaan xilligii hadda la soo gudbay kasoo wareegatay 2 sano ku dhawaad xaaladeeda adag markaas aragto sama ka hor ilmahayga waan korsanaayay anaa haysta anaa aabba iyo hooyo u ahay meelaha munaasibkeyga ahayn oo istaagi jiray ilmahayga inaan soo korsado waxaan soo maray xilli aanan cidna u sheeganayna baahideyda waxaan soo maray xilli oo anoo gabadho qurux badan oo dhalinyaro oo da'yar oo qurux badan in aan maamooyin waaweyn inaan dhex galo urur dhalinyaro aan ururka haweenka ka soo mid noqdo oo aan dharka hidaha iyo dhaqanka la xiro oo aan oraxda istaago oo dadka soo dhaweynaya ka mid noqdo 100,000 oo maalintii noo la qaybinaya darteeda aan hooyooyin ayeeyooyin baan anigu da'yar dhex gali jiray waxaan xasuustaa nin wariye ahaa BBC u shaqeynay ilaa hadda ku yahay ma aqaano ano aad u yar oo wuxuu ugu dhahay dharkan adiga ma lagugu talagelin maxaa ku xiray kaasa waxaan ku dhahay dana ii xirtay kasoo gudub xilli waxaa la soo maray ilmihayga waxaan siiyey intaa waaye oo kaam cunto laga karinayo saf u galay oo cunto bisil waxaa laga dhiibi jiray digir iyo bariis digirtu way iga hor dhammaan jirtay oo waxaa ahaa qof hurdo weyn intaa jiifo alisaydi inta la tagaa la kala dhamaysan jiray waxaan ku gaari jiray bariiskaasaan inaa bac layga soo buuxiyo wiilal walaalahayaa meesha mas-uulka ahaabaa aan waxaa ugu dhigi jiray quraac qado ilaa iyo casho cidna ma u sheegi jirin baahideeda kasoo gudub waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid gabadha quruxda badan arkaysiin gabar lafac wadataa dhehaysiin intee kala soo dhacay waxaa la soo gaaray xilli oo aan la soo maray guriga intay imaaday waxay cuntay ay ka waysay ee ayadoo baahan ku noqotay dugsigeeda markaa imaadayni maxaa ka xanuun badan cunugaagii oo guriga wuxuu ku cuni ka waayey laabtay ilmihiiyo caloosha uda buuxda dugsiga wada imaaday soo wada quraacdeen dhex fariistay maxaa ka xanuun badan maxaa dareemi lahayd hooyo markaa tahay cidna uma sheeganin waa qarsaday waxaa soo martay xaamila ahay uura ahay ayaa la ii joogay waxaa ii joogtay shukri iyo cabdalla ii joog markaa waxaan dhalay yusro markaan dhalaayay markaa uma la noqonayo dadka markay umanayaan waxay diyaarsadaan aniga maan haysana shilin aan wax ku diyaarsado mishaari dharbo fulaan aan la diyaarsadaa maan haysanin wax aan diyaarsado waa iska galay foolaa iska kay qabatay waan dhalay waxaa iga soo qabatay gabaraha hawdhar uu ahay muslimo xeefow heerjoor way yaqaanaa intaasoo si ka shaqeysaa muslimo beelow nin dhintay nin dheer oo ku markaas muslimo muuqaalkayga laga yaabo inay daawato muslimo dharbahayga oo may ku dhaqday wayse markaasay gurigeedii ka doontay muslimo way baxday
markay aniga iga soo qabatay gabadheeda Yusro way baxday gurigeyga markaa wax markaas aan nafta ku cishto masane wadnihii itagaayo mar qof markoo dhalo waa dareemi kartiin itagaayo wadnihii itagaayo wax ma aragti ii sheeg oo raali noqdo wax markaas ma aragtay oo ku shilin baraf aan ku gato maysan aan gurigeyga wadnaha ku cishto waan qarsaday cidna uma sheegin wiilkay waxaan hadlaaya micnaha aan u sheegaya naagaha igu jaajeesayaan kasoo gudub waxaa imaaday walaalkii cabdisha xasan ogaaday xaaladeyda wuxuu u sheegay khaliif waa xasuustaa quraacdii ugu horeysay khaliifa ii keenay iyo cabdisha xasan ay yimaadeen kadib waxaa dhacday ina dhalinyarada joog xaafadeena lacag layga soo aruuriyo waan dhahay hadhow waa laygu caynaya yaa la sheegin ma farxi cabdiraadiyo wax loo aruurino yaa la dhahay mayaa lay dhahay may cidna ma dhihin waxaa la dhahay gabar walaasheena umale baa wax loo aruurinaya bis sidii marka laygu soo aruuriyey anoo dhahay yaa la sheegin yaa laygu caynine waxaa istaagi jiray markay maamulka ay bixinayaan ii sheeg macaawino anoo qurux badan isqarinayo waxaa la dhihi jiray naya wejigaas ka qarinayo shareera xiranayaa lagu arki darteeda qorya lay ku ridaa lay dhaha naya naga in shareerka xiran tahay maxaa isqarxi rabtaa cidna uma sheegin waxaa soo maray xili malaamaley aan noqday oo hay-adaa imaaday hay-ad dadka masaakiinta kaara waxaa loogu shubaayay maamulkaa yiri markii dambe dadka kaarka la siinaayo waa dadki inay dhulka nadiifiyaan inay dhulka nadiifiyaan la siiyaa bis iyo wixii la siinayo waa inay nadaafad ka qayb qaataan oo gobolka waa ka mid noqday dadkii lagu nadiifiyaa ka mid ahaa ninkii yaqaano gaar shiro maxamed dheero gacanteedan kusoo jiidaya baktiga cidna uma sheegin baahadeeda cidna uma sheeganin waa kasoo gudbay waxaa imaaday muqdisho 2 sano waxaa ku noolaa xayaat kale meelaa munaasibkeyga ahayn baan maalin weliba taagnaan jiray laygu dhaga hadlaayo lee caynaayo wax kasta lee dhahaayo waa kasoo gudbay heer waxaan gaaray markaa ugu dambayn waa waxaa idinka haddii igu soo ceynaysay sooma waqti yar inaa isku soo koobay nafsadeyda ma aqaan dad idaba taagnaay oo ku dilaynaa lay dhahay inta haddaan aado ciyaalkaaga iska dhig anaga nala noolow wax kale maku qaban karo inta da-aada minjaha nin guurso ilmahaaga amaa ku korsataa minjaha ilmahaaga ma ka carartaa farxiyo way iyo cunni waase intaas oo dhan waxaan ka doorbiday inaad dadkayga dhahaa lee caawiyo ugu dambeyn waatana hadda igu soo caanaysiin tuugsato ergas adduunka u necba aniga ilaahay waxaan ka baryay yaa allah aniga ma dooranin aniga inaa 4 cunug kala aaba aan dhala ma dooranin inay 4tooda isku jid maraan ma dooranin ma dooran ayagana inay iga daawadaan meel kasto anigu xaladan ugu xun oo maraayo aan ooynayo inay daawadaan ma dooranin
ereygaas waa dhibsaday tuugsatoy waa dhibsaday yaa rabbi ilaahu waxaan kaaga baryayaa masiibo ka soo saar hadda masiibo dadkii ii soo qoraaya markaan wax yar oo aan qof wax isdhaani xitaa tuugsatoy ii soo qoraaya mase anoo qurux badan haddii la arko tuugsatoy ii soo qoraaya yaa rabbi ani ma dooran intaasoo addoontaada ah adaa ii doortay yaa rabbi ilaw addoomankaaga iga qabo anigaas aadaa u dhibsaday maxaa sameeyaa aniga maxaa sameeyaa maantana maalina heenaad ka shalay doontaan waa ogahay waa ka shalay doontaan haddaa iga hormartiin waa iga hormarteen haddaa idiiga hormarani waa ka shalay doontaan waxaa dhihi doontiin allah haafturki ma dhimatay muuqaaladeeda ku dul ooyn doontiin commentia iisoo qori doontiin waxaa dhihi doontiin mataqaanaa ereygaasay dhibsan jirta waa la dhihi jiray aniga waa u qori jira waa maalin aan ku cafin karin ani an ilmahayga dartooda waxaas oo dhan usoo baray ugu dambeyn shalay ilmahayga dartooda waxaan u maraa dadkii igu dhahi jira waa dilaynaa maanta waxay taagan yihiin naag daarooda ahaa dhahay waa ka baxay habyo ma ihi ebel waxaa dhihi jira qabiil bihi laakiin maanta daarooda ahaa dhahay kasaana u dhahay shalay ilmahayga dartooda igu dili rabteen maantane maxaa leedihiin tuugsatoy ciddan weerar tiktokgayga la raboodaya laleeh ya maxaa la dhahaa hala dilo ilaahay idiiga weyn ilaahaan idiigu daasta sidaa ii holcinaysiin aa ii karkariseen ilaahay idii karkaray farta aad dadkaa iska qarinaysiin waa is qarinaysiin waa ogahay makhluuqa iska qarinaysiin anaa iska qarinaysiin xitaa hooyada ama aabaha kuma ogo akoonka aad leedahay aad farxiyo ugu soo qoraysa ereyga xanuujinaayo laka waxaa ogaataa axad aadan ka dhuuman karin aa kuu jeedo asaana kugu dacweeyey